hal bilyan oo inaga mid ah waxa ay leeyihiin moobilada casriga ah wayna ka warqabaan sida ay balwada inoogu noqon karaan. Shaqaale hore ee shirkadda Google ka shaqeyn jiray waxa uu yiri arrinkani ma aha mid iska dhacay ee waa qorshe loogu talagalay. Dhibaatadiisana waxaa sii labalaabaya dadaalada aan joogsiga lahayn ay ku howlan yihiin dadka applicationadani sameeya oo dantoodu tahay inaynu moobiladeena aan ku sii fororno. oo maxay tahay sababtu? Shirkad kasta oo udub dhaxaadka ganacsigeedu xayisiinta uu yahay ama shaqadeedu ay tahay howlgelinta ku saleysan xayisiinta waxay ka dhigan tahay shirkadaas inay daneynayso waqtiga qofku uu ku bixiyo agabkan. yacni mar kasta oo dadku moobiladoodu ay isticmaalaan dhaqaalaha iyo dakhliga soo galaya shirkadahani waa mid sii kordhaya. marka shirkaduhu waxay tartan u galayaan qaabkii moobilkaaga ay ugu soo tuuri lahaayeen farsamooyin qancin ah oo kala gedisan si ay maanta dadka in badan oo waqtigooda kamid ah moobilka ay u galaan birin ay u soo laabtaan. ma ogtahay geedi socodka fikirka ay ka soo maxdeen applicationadan in la dhiso oo Facebook ugu horeeyay si loo fahmo geedi socodka fikirkaasi gabi ahaantiisa waxa uu ku saleysan yahay waqtigaaga intiisa ugu badan sidee ayaynu kaaga xadi karnaa, tareenkaaga sidee ayaynu gacanta ugu dhigi karnaa. taasina waxa ay ka dhigan tahay si loo damaanad qaado markasta in moobilka aad ku forortid. waxaa loo baahan yahay in yar markii la joogaba xoogaa dopamine ah in lagu siiyo. markasta oo qof faalo uu ka bixiyo sawir aad soo dhigtay amaba uu like uu ku saaro ama uu ku share gareeyaba waxaa kor u kacaya dopamine-ka oo ah hormoon kor u qaado farxadda. taasoo keenaysa mar walba sawir iyo muuqaal hor leh in aad dadka la wadaagtid si comment iyo like dheeraad ah aad u heshid. waxaan u maleynayaa gudaha gunta maskaxdeenu waynu ka ogeyn in wax xun ay ka soo bixi doonaan, laakiin dhibtu heerkan in ay gaarayso uma aynaan malaynaynin. hadda waxa ay maraysaa meel aan ka soo laabasho aan lahayn. waxaan abuurnay qalab burburiyay qaab dhismeedkii bulshada, dhaawac mug ahna gaarsiiyey hanaankii bulshadeenna. haddii aad bahal aad quudisaan ugu dambeyntii bahalkaasi uu idin cunayaa, balse haddii aad xakamaysaan waxaynu haysanaa fursad aynu ku maamuli karno kuna maareyn karno. waxaa la joogaa xilligii dadka ay si adag ay iskaga jebin lahaayeen silsiladaha qalabkani ay ku xireen. saqradda muddada gaaban uu sababayo dopamine-ku ee dadka gelinaya hawada beenta ah aan dhammaadka lahayn waxa ay burburinaysaa bulshadii. ma jirto maanta bulsho dood wadaagaysa, mana jirto bulsho maanta isgacan qabanaysa. baraha bulshada waxaa laga dhaxla warseeg iyo xaqiiqdii oo afduuban. mana aha dhibtani mid ku kooban Soomaalida, mana aha mid ku gaar ah Mareykan iyo Yurub ee waa mushkilad adduun weynaha oo idil ka taagan. baraha bulshada qabatinkooda waxa uu baabi'inayaa udub dhaxaadkii muhiimka u ahaa habdhaqankii bini'aadamka iyo sidii dhexdiisa uu iskula dhaqmi lahaa. dadka caanka ahi waxay si sahlan u duufsan karaan tiro aad u badan oo bulshada ka mid ah si wax allaale iyo waxay rabaan ay u sameeyaan. waana xaalad aad iyo aad runtii u xun. innaga ayaa dhibaatada sii kordhinayna oo sii labalaabeena. waxaa nolosheena ku daaweynaa dareenka raaligelinta nafta ee qiyaaliga, sababtoo ah hadhow waxaana lagu abaalmarinayaa calaamado muddo kooban inoo adeegaya sida like, wadnayaal, comments. markaasaynu qiimo aynan lahayn inta aynu siinay ayaan sidii waaqica dhabta ah oo kale ula dhaqmaynaa, iyagoona dhabtii ah wax kami jiraan iyo been. dareenkaas kooban ee reenreenta iyo farxadda ah ee like-ta iyo commentiga markii uu ka baxo waxaad dareemaysaa marnaanshiyo. ma dareensinid oo mana ogid, waana lagu brograamiyey. shayga balwadda aad u leedahay ayaa jideeya waddada noloshaadu ay qaadayso. cadowgaaguna waxa uu si fudud hoggaanka kuugu qaban karaa inuu gacanta uu ku dhigo shayga aad balwadda aad u leedahay. qof in aad ka kontaroosho baraha bulshada micnaheedu maaha in muuqaaladiisa iyo sawiradiisa aad haysid, balse waxaad samayn kartaa baraha bulshada in aad ku soo tuurto muuqaalo aad ugu talagashay in ay beddelaan dhaqankiisa iyo in ay baabi'iyaan akhlaaqdiisa iyo wax walba uu aaminsan yahay, iyo in aad ka fogaysid qiyamka dhabta ah ee noloshiisu ay ku tiirsan tahay. waana sidaan qaabka ay adigu kugu sameynayaan. caqligaaga waxyaabahan ayay ku mashquuliyeen si aad waqti aadan ugu helin arrimaha kale ee muhiimka ah. ama si kale haddaan u dhigno systemkooda ayay addoonkaaga dhigeen iyaga oo baraha bulshada adeegsanaya. inta Facebookga iyo TikTokga aad ku jirtid shaydaanku waxa uu xadayaa waqtigaaga, sababtoo ah baraha bulshada waxaa buux dhaafiya muuqaalo aan dhammaad lahayn kuwaasi oo inta dabinkoodu kugu ridaan noloshaada aafeenaya. bal u fiirso, keliga ayaad meel fadhidaa adigoo brograamyada adeegsanaya oo u maleynaya adduunka in aad ku xiran tahay.
balse waxaadan ogeen in ay tahay qaab ay bulshada ay ku kala qaybiyeen kadibna ay ku maamuleen. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi taranta nebi aadan ruux kasta oo ka mid ah ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo ilaa laga weydiiyey 4 su'aalood. 4taas su'aalood waxaa ka mid ah cimrigiisa waxa uu geliyey. waxaa la weydiinayaa qaabkee ayaad noloshaadii ugu soo noolaatay. dadka badankoodu baraha bulshada ayaa balwad u noqotay. markaasuu ku odhanayaa 5,000 oo qofood ayaa igu xihan. waxa uu iska dhaadhicinayaa dareen been ah oo uu dareemayo inuu waxqabad uu sameeyey. 9 saacadood oo maalinkiisa ka mid ah ama in ka badan markuu baraha bulshada uu dul fadhiyo. haddii aad weydiiso maxaad ku soo kordhisay noloshaadii maalinlaha ah, maxaad qoyskaaga oo wanaag ah aad ku soo kordhisay, ubadkaagii, waalidkaagii iyo deriskaagiiba maxaad u qabatay, maxaad guud ahaan ummadda islaamka ah aad ku soo kordhisay. intuu madaxa kor u qaado ayuu ku odhanayaa muuqaal aan facebookga aan soo geliyo waxaa daawaday 200,000 oo qof. runtii fikraddan way iga yaabisay balwaddan nolosheennii oo dhan ayaa maanta ku xihan. maxay tahay sababta keenaysa oo ku horseedaysa stress, murugo iyo warwar aan loo baahnayn? sababtu waxay tahay waxaad ku mashquulsan tahay nolosha dad kale ay ku nool yihiin, taasoo keentay indhahaaga waxa keliya ay qabanayaan in ay noqdaan waxa adiga kaa maqan. nimcada ilaahay adigu ku siiyey miyaadan arkaynin? maxaa keenaya adduunka oo dhan in aan la wadaago ciddaan ahay iyo waxa aan cunaayo iyo meel kasta oo aan aadayo? adigu camal la'aantu ma waxay kaaga dhigan tahay dadka iyo waxa ay qabtaan in aad daba raacraacdid? ma fahmo sababta dadka ku kalifta in ay selfie iska qaadaan sidaani oo kale. maxaa laga faa'iidaa marka sidaan la leeyahay dadka inta selfiga iska qaada ee internetka soo dhigta in ay u badan yihiin kuwa noloshoodu aanan ku faraxsanayn? hadday dhab ka tahay qofka selfiga iska qaadaya marka uu soo tooso subaxii isagoo xabadshadii iyo dhareerkii ku yaal sawirka muu iska qaado? sawirka qofka uu soo dhigayo waa mid uu si taxaddar leh u soo doortay. badanaana dadka waxa ay sawirrada iska qaadaan marka ay fasaxa ku jiraan ama marka ay wax qabanayaan, si adduunka ay u tusaan in ay nolol qurux badan ay ku nool yihiin. laakiin dhabta ayaa waxa ay tahay in noloshaasi aysan ku nooleen. dadka ayaad wax la qabtaa, noloshaadu qurux iyo xumaanba way iskugu jirtaa. xitaa haddii aad noloshaada farxad iyo baraare aad ku haysatid, ha tusin dadka, sababtoo ah dadku way ku nacayaan wayna kula ciloobayaan. waxa ayna niyeysanayaan nimcadaasi aad ku sugan tahay in ilaahay inta uu kaa qaado in iyagu uu siiyo. baraha bulshada waxa ay ka mid yihiin fitanka ugu waaweyn ee wakhtigan jira, sababtoo ah waddada ugu fudud ee cadowgaaga u sahlayso inuu kugu ciyaaro si dareenkaaga uu gacanta ugu dhigo kadibna uu baahiyo aan jirin kuugu abuuro, waana wax ugu jecel yahay shaydaanka. waxaad maanka ku haysaa mar kasta oo aad soo dhigtid ama aad soo qortid wax anshuxumo ah, dad tiro badan ayaa arki doona oo akhriyi doona. marka qof kasta oo arka iyo qof kasta oo akhriya dembi ayaa lagaaga qori doonaa. maalinka qiyaamahana ilaahay adiga ayuu kaala xisaabtamayaa. sidoo kale markii aad laygarayso muuqaal anshuxumo ay ku jirto, laygtaasi waxa ay keenaysaa in muuqaalkaasi uu gaaro dad badan aanan arki lahayn. marka bal waxa aad qiyaastaa dembiga kaa soo gaaraya muuqaal ama qoraal anshuxumo ah marka aad laygaraysid. weli ma waxa ay kula tahay waxaan in ay iska dhaceen? bal waxa aad daawataa cidda facebookga dabada ka riixaysa. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. facebookga waxa uu ka sare maray borograam kasta oo CIA-du xogta ay ku aruuriso ilaa markii la shaaciyey 2004. kadib sannado badan oo amnigu ay kormeerayeen shacabka, waxaa la yaab ku noqotay in dadka si iskood ah in ay u faafiyaan goobaha ay ku nool yihiin, diimaha ay aaminsan yihiin iyo aragtidooda siyaasadeed, iyagoo liis dheer ku taxaya magacyadooda, iimayladooda iyo ciwaanada guryahooda, nambaradooda iyo boqolaal sawir iyaga iyo qoysaskooda ay leeyihiin, iyo xitaa ilbiriqsiga la joogo waxa ay sameynayaan. dhab ahaantii waa riyo u rumowday CIA-da, iyadoo facebookga lagu tilmaamay inuu yahay aaladda bulshada midda lagu kontaroolo midii ugu awoodda badneed ee abad la sameeyey. shabakaddan waxaa loo sameeyey si aad kale u ahaatid, si xaqiiqda aad uga fogaatid, si aad u niyad jabtid, si lagaaga dharjiyo anshuxumo iyo xog la maran habaabiyey, si fikir ay u abuuraan, si ay u burburiyaan caqiidada aad aaminsan tahay, si ay kaaga hor istaagaan si madax bannaan inaad u fikirtid, iyagoo ugu dambeyn adiga oo aadan ogeyn ay kuu maamulaan. waana debinka dhammaystiran ee shaydaanka.
waqtigaaga waxaad gelisaa wax adiga ku dan ah oo dhab ah hana u ogolaanin shaydaanka in waqtigaaga uu kaa xado haddii aad noloshaada aad maamuli weyso cid kale ayaa kuu maamulaysa